Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada. Maanta waxaan idin wadaa video nafaqo baradho iyo ukun aan isku soo dhex hagaajin doono. Waa kana hadda waxaan soo fiiqday baradhadii. Halkan waxaan soo saartay biyo aan ku soo ridanayaa markuu ii bislaado kadib. Waa kana soo bislaado halkaan aan ku soo ritay 2 xabo ka mid ah. Waxaan soo qaadanayaa baashii lagu burburinayay. Waatana soo burburinayaa asxaabta soo dhawaada. Kuwa hore noola joogay kuwa cusub dhamaantiin. maasha Allah asxaabeetii hore waa soo dhameeyay tu kala hadda halkaan ku soo ritay ayadana sidoo kale u burburinayaa. maasha Allah soo dhameeyay halkaan aan ku soo wada ritay kulligeed. Waxaan sameynaa hadda marka filfil yar aan ku soo darsanayaa iyo wax yar oo cusbe ah si wax yar oo dhanaan ay noogu yeelato. laakiin wax yar oo cusbe ah waaye aan ku soo darsanayaa. waa isku soo dhex walaaqayaa marka si fiican si meel walba uga gaarto. intaas markaan soo diyaarsaday meeshaan waxaan soo saartay 3 xabo ukun ah aan dabka soo saartay. aan rabaa inay ii bislaato. markay ii bislaatay kadib halkaan aan ku soo ritay waan soo fiiqanayaa. waa kana waan soo fiiqay waan soo jarjarayaa hadda noocaas u jarjarayaa. waxaan rabaa baradhadii hadda aan soo hagaajinayay inaan hadhowta dhexda ka geliyo sababtaas aan noocaas ugu jarjartay. waatana hadda baradhadii hadda aan soo hagaajistay yaan dhex gelinayaa. maasha Allah saas u soo goynaysaa wax yar saas u fidinaysaa dhexda saas gud ooga dhigaysaa. ukuntiya soo qaadaysaa tii hadda aan jarjaranayay dhexda ka gelinaysaa waa isku duuduubaysaa marka maasha Allah saas ku soo dhameyn doonaa. maasha Allah asxaabta video hadda idinku dheereeyay ka raali noqda waxaan rabaa inaan wax dhan idin tuso. maasha Allah ka faa'iideysi wanaagsan saas ku soo dhameeyay. waa kana halkaan aan ku soo diyaariyay. maasha Allah waa u jeedin sidii aad arkayseen ukunta oo soo dhex gelinay markaan ku soo dhameeyay kadib halkaan aan ku soo ritay. maasha Allah aad ay u fududahay. halkaan waxaan ku soo ritay 1 xabo oo ukun ah. waa isku soo qasanayaa. laakiin waa soo qastay. halkaan waxaan ku haystaa bread crumbs kaas isagana waa isticmaali doonaa. laakiin halkaan aan ku soo ritay baradhadii hadda yarto aan ukunta soo dhex gelinayaa soo qaadayaa. maasha Allah ukuntii hadda aqsanayaa dhex gelinaa bread crumbs kaas korka uga shubaa marka. kaas saas korka uga shubaysaa. hadda waa ku soo dhameynayaa marka halkaas baa in tusay hadda laakiin kulli waxa dhan waxaa soo gelinayaa ukuntaas. maasha Allah asxaabta maanta wax walba inaad idin tusaaraan marka xabad idinka tusi jiray laakiin hadda kulli waa idin wada tusaaya. waa kana hadda ukuntiya soo wada gelgeliyay waa ku soo dhameeyay hadda bread crumbs ka yaraa markiina kulli ooga shubo korka hal mar.
maasha allah saasaa kusoo dhameeyey kana hadda waxaan rabaa markii inaan soo dubo saliid yar halkaan kusoo shubanayaa maasha allah waa kan hadda saliidda halkaan kusoo shubanay waa soo dubaneynaa hadda qaybta u horeysa ka bixiyay qaybta labaad ku ridaaya hadda maasha allah dab waxaa ku dubaysaa dhexdhexaad aadna aan u dheereyn aadna u gaabnayn dab gaaban haddaa ku dubto meeshii kaaga dhex burburaysaa marka dab dhexdhexaad ah ku dubaysaa waxoogaa kuleyl xiga weliba maasha allah asxaabi waa kana diyaar inoo noqotay sababtoo ah hore u karsanayd baradhadana waa karsanayd ukuntana waa karsanayd dabka wax badan kuma sii jirayso dhaqso waa ka bixinaysaa markii wax yar guduud noocaas ku soo noqoto sidaasaa kusoo diyaarsaday asxaabay uu ii noqday quruxda badan maasha allah waa ku mahadsantihiin daawashadiina asxaabtiina la joogtay fiidiyowga markuu bilaabanaya ilaa dhammaadkiisa waa ku mahadsan yihiin aada ugu mahad celinaynaa kuwii nagu caajisa igana waa ka raali gelinaynaa asxaabtaada kale la sii wadaag fiidiyowga like noo dheh waa ku mahadsan tahay joogistaada iyo daawashadaada maasha allah markaa saasaa kusoo diyaarsada asxaabay ujeediin ka faa'iidaysi wanaagsan waa nafaqo ilmaha si khaas ah ugu sii fiican tahay hal isbuuc cunugii loo kariyo waxaa waaye waa laga dareemayaa halkan waxaa kusoo diyaarsan aniga basbaas yar qofkii basbaaska jecel marka maasha allah asxaabay ujeediin fiidiyowgeeni sidaas quruxda badan uu noo noqday waa ku mahadsantihiin daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh